waayahay so far waxaan soo qaadanay network fundamentals oo aan xoog ku soo saarnay basically waxa uu yahay network iyo routing protocolskii commonly waxa uu ahaa subnettingkii qaybta labaad waxa uu imaanay markii switching protocols oo aan dhammaantood ka soo baxnay levelka CCNA haddana waxaan ku guda jirnaa ama aan bilaabeynaa IP connectivity oo kaga hadli doono routing protocolska iyo even routerka itself موضوع ugu horeeya waxaan qaadanaynaa sidee routerska ay data u forward gareeyaan ama ay go'aan ugu qaataan marka ay data forward gareynayaan maxay tahay data forwarding waa process loo suuragelinayo data nooc rabta ahaato muuqaal text image wixii rabta ahaato in laga qaado hal computer lana geeyo computer kale okay si kale gurigaygan joogaa hadda waxaan communication ku sameynaynaa through the internet anagoo isticmaaleyno online collaboration tools ka ugu horeeyo Google Meet that device aan iyo shirkada ugu xiran idinkana shirkad kale idinku xiran those shirkadahaas marka see go'aan ugu qaadanayaan data in la forward gareeyo yaa inta ku baranayna sababta aan title-ka u qaadanay imtixaanka CCNA waxa ku jirto in la soo bandhigi doono routing table kadibna la lihi doono which route ama which IP is the best path or data lagu diri lahaa sidoo kale isla caawa waxaan ka hadli doonaa dynamic routing protocol oo aan xoog ku saareyno OSPF iyo EIGRP saddexdan mowduuc hadduu Ilaahay idmo ay noo soo gasho aan ka fargareynayna insha Allah waa tahay title-ka ama ciwaanka arabna inaan caawa qaadano waa xawaaye waa routing concepts it's okay chapter-ka ama module-ka nooca uu yahay waa idin soo wadaagi doonaa routing-ka protocolada uu ka kooban yahay ama chapterskiisa si guud ahdaafta arabna caawa inaan meel saarno waxay tahay sidee router-ka go'aan ugu qaataa markii uu data diraayo yani path determination each and everyone oo glass-ka joogo waxaan rabaa in uu go'aan ka qaadan karo naftiisa inta uu router-ka go'aan ka qaadanin datada wadada ugu macquulsan ay lagu diri lahaa waxa kale oo baranaynaa packet forwarding-kiska kala duwan ee iska leedahay dhowr waxa jiro farsamo ama modules ay isticmaasho Cisco markii ay rabto data inay forward gareeyo modules old iyo modules casri ah intaba waa baranaynaa tan haddii aan faahfaahinno maxaa suuragal noo noqonayo imtixaan haday noqoto hadii ay noqoto maxay ahayd concept ina ka bixiso haday noqoto adiga naftigaada ina go'aan ka qaadato wadada u mari lahayd datada ina fahamto waxa kale oo sameyn doonaa basic configuration of course kan waa bogsi doonaa because bilaago hore aan ku soo baranay qaabka router iyo switch configuration lagu sameeyo waxa kale xoog saareynaa IP routing table oo ah xubinta ugu muhiimsan markii router la joogo because waa mapka dhan oo go'aanka laga qaada lahaa hadii packet la drop gareynayo hadii reachability uu mid dhow noqonayo hadii maxay ahayd network-iska la summarize gareynayo waa meesha laga arki lahaa kadibna waxa isbarbar dhigaynaa static routing iyo dynamic routing waa laba protocol oo aan marna ahayn kuwa ka maarma marka labadaasna waa isbarbar dhigi doonaa hadii ilaahay waxaan ku bilaabeynaa marka path determination sidee marka router-ka uu go'aan ku qaataa markii uu data forward gareynayo intaan horta go'aan ka qaadanin waxa isweydiinayna horta router-ka muxuu yahay router-ka laba function oo inoo qabta laba function oo kaliya iyo router-ka noo qabta functions-ka maxay tahay router-kaada markii data uu receive gareeyo for example hello waa dirtay hello haduu helo muxuu sameynayaa hello-dan intuu ka helayaa every data aan direyno router-kaada wuxuu ka receive gareey doonaa interface uu leeyahay waa arki doonaa sawirkeeda interface-ku muxuu yahay interface-ku waa god router-kaada input iyo output oo ka sameynayo godkaas data markuu ka helan wuxuu aqoonsan doonaa inay tahay packet maxaa waaye packet waxa lagu xusaa IP-ga fariinta diraayo source-ga iyo cidda loo diraayo destination-ka markii intaas uu helo wuxuu go'aaminayaa marka which interface hadane oo datadaada loo isticmaali lahaa in forwarding loogu sameeyo yani in laga diro so god hadii laga helay godka kalena laga diri lahaa so mararka qaarkood macquul ma ahan mana dhici karto in router-kaada hal godna oo wax ka helo hal godna oo wax ka forward gareeyo and it's logic labadana suuragal waa tahay yani macquul ma marka idin dhahay lama jeedo totally suuragal ma for example router-kayga wuxuu yeelan karaa WAN oo ah god aan internet communication kala sameynayo iyo
good LAN ah oo communication kala sameynayo local area network-gayga labadaas marka midna wuxuu ku noqonayaa at the same time in midna wuxuu ku noqonayaa at the same time out haddana waxaa laga yaabaa midka out-ka ah inuu ku noqdo in so waxaa leenahay marka packet-ka marka aan helno marka aan dirayno waxaa go'aan ka qaadanaynaa yaa u diraynaa destination-keena yaa haddii destination-ka uu yahay public waxaa u aqoonsanaynaa inuu public yahay haddii in-keena uu yahay ama packet-ka aan helayno local waxaa adeegsanaynaa marka inay tahay local process-ka marka aynoo sheegaya hadda waxaa loo yaqaanaa routing loo yaqaanaa okay process-ka router-ka oo go'aan kaga qaadanaya inuu data helo inuu data forward garayo maxaa loo yaqaanaa routing protocol loo yaqaanaa okay in routing protocolskaas ee dhacaana waxaa waajib ah in la helo protocolkii mas'uulka ka ahaa inuu go'aan ka qaato interface-ka datada laga helayo interface-ka datada loo dirayo and that is routing protocol either inuu noqdo dynamic ama inuu noqdo maxay static routing protocol so inta markaan ka soo gudubno primary function-ka oo router-ka inoo sameynayo waxay tahay markii data uu helo durba inuu go'aan ka qaato datadaas wadada ugu macquulsan ama ugu dhow ee loo diri karo fariinteeda ama la marsiin karo si marka datadaas loo forward gareeyo ama go'aan looga qaato best path waxaa waajib ah router-kaada inuu leeyahay routing table routing table-kaasna ay ku kaysan tahay every single information uu u baahan yahay router-kaada si uu data u forward gareeyo in practice-kana waa ku arki doonaa hadduu ilaahay marka mid la ogaada best path waxaa go'aan looga qaadanaya routing table-kaada routing table-ka muxuu yahay waa map ay ku keedgaraysan yihiin informationska kala duwan ama wadooyinka kala duwan ee data la marsiin karo this is the marka two functions oo noo sameynayo router-keena functionality-ga router-ka waxaa ka mid ah inuu isticmaalo wax loo yaqaano routing table routing table-ka noola sheegaa sidaan u egtaa of course okay maxay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay IP addresses-ka oo yaqaano router-kaada iyo kuwa banaanka ah ka barata waa isla baran doonaa xarfahan S iyo C iyo waxay u taagan yihiin alright for example network diagram-kan haysta this is router shaqadiisu maxay tahay inuu isku xiro two different networks two different networks local area network waa network gooniya router-kan markuu inta communication la sameynayna waa network gooniya xaggan waa network gooniya so computer-kaada oo ah markii uu data soo diro router-kaada fiiri goodna waa in goodna waa out goodka guduudka ah waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay one oo ah meesha aan communication kala sameynayno other networks interface-kaana waa LAN so router-kaada marka waa inuu leeyahay routing table-kaasna lagu xaqiijiyaa network-iska adi aa leedahay router-kaada by default god kastoo asi uu leeyahay oo physically ku xiran waxaa loo yaqaanaa directly connected networks okay waxaa loo yaqaanaa directly connected networks because asigaa leh for example 192.168.1.0 iyo 192.168.2.0 router-kan labadaba loo gale u yihiin yaa ka maqan uunan aqoonin 3 uunan aqoonin 3 hadduu aqoonin macnaheedu maxay tahay 3 network-gaas asiga ma lahan waa in la baraa so marka fiiri marka best path-ka markii go'aanka laga qaadanayo maxaa nidhi routing table-ka waa in lasoo geliyaa every information routing table-ka waxaa lasoo geliyey 1 iyo 2 waa lasoo geliyey 1 iyo 2 maxaa waaye waa directly connected router-ka itself oo yaqaana waa interfaceskiisa yaa rabnaa inaan gaarno 3 yaa rabnaa 3 information-keeda waa lasoo geliyey marka how waa 3 u baratay through static routing ku barano oo ah S okay so router-kayga marka haddii uu rabo data inuu diro datada wuxuu marsiin doonaa 2.2 maxay computer-kan oo ah u neesano oo 1 ah markuu rabo data inuu soo diro wuxuu ka heli doonaa 1.1 datadeena waxaa la marsiin doonaa 2.2 waa meesha datadeena la marsiinayo oo ah best path haddii hadday jiraan wadooyin kale meeshaana ku soo dixmi doonaan waan isla arkaynaa wadooyinka sida u kala baxayaan markii la ogaado router-ka inuu isticmaali doono routing table oo ah shixda oo go'aan kaga qaadan lahaa datadaada meesha ku marsiin so best path markii la qaadanayo kaliya lama fiiri doono routing table-kaada
calculation aan dhici doono قاعدة marka waxaa jirta anaga network admins kan isticmaalo routers kana by default oo isticmaalo oo ah best path equals longest match maxaa waaye wadada ugu macquulsan waxay la mid tahay wadada maxay tahay longest match hadii aad ku micnayso wadada ugu dheer ugu baxara galaysaa longest match waxaa laga wadaa IP address ka ugu numberka dheer okay maxaa ka wadaa ugu numberka dheer each IP address wuxuu leeyahay prefix length yule waa baranayna deeply gudaha u galayna serial number kan /24 dhamaantood same ka wada yihiin okay hadii same ka wada yihiin yaa loo aqoonsanayaa best path marka waxa loo aqoonsanayaa interface ka soo numberka ku jiro hadii kan 1.1 ku jiro kana 2.2 oo ku jiro yaa weyn 1.1 iyo 2.2 waxa weyn 2.2 longest match taas laga wadaa inta fiiri marka longest match waxaa laga wadaa markii la dooranayo best batchka routing table kaada waa inuu ku jiro wax loo yaqaan longest match waa in IP addressyadaada ay yihiin kuwa kala duwan okay routing table kaadana wuxuu leeyahay entries kaasna waxay yeelan doonaan kuwa consistency of prefix lengths hadaa maqasho dhalinyaro waxaa laga wadaa network address ka laga wadaa network address maxaa waaye waa IP address ka 192.168.3.0 2.0 1.0 adoo 1 markii aad rabto 3 inaad gaarto waxa mari doontaa 2 waa maraysaa because 1 aad tahay longest match waa 3 remember taasna prefix hadaa maqasho network address ka laga wadaa okay prefix ka markii laga soo tago muxuu yeelanayaa wax loo yaqaan prefix length maxaa waa marka waa serial number waa slash prefix maxaa waaye waa network address ka prefix length maxay tahay waa slash ka saaran IP gaada taas waxaa aqoonsanaynaa inay tahay wadada ugu macquulsan ee hadhoodi go'aan aan ku qaadanayno alright okay qaacidooyin ay jiro markii la isticmaalo ma isku wareerinayno anaga iskuma wareerinayno far bit leftiga iyo dimi daar iyo calculation ma tagano waxa xisaabsanayno waxay tahay markii aan heesano dhowr IP hadii same yihiin for example ama ay kala duwan yihiin hadhoodii hadii kala duwan yihiin maxaa laga wadaa network address ku kala duwan yihiin laakiin hadii prefix length same ka yihiin oo lagu yiraahdo si loo gaaro 3.0 which is the best route remember inay tahay 2 why because 2 waxay tahay longest prefix match ama prefix markii loo fiiriyo routing table keega hadii maxaan ugu xijeynayaa adiga waxa tahay 1.1 waxa rabtaa inaad gaarto 3.3 which is the best route of course 2.2 oo network-ga kugu xiraayo 3 I think ina fahanteen the longest match maxaa laga wadaa marka the longest match waxaa la geli doonaa routing table kaada wuxuuna ka weyn yahay numberska dhan markii la isku soo dardaro oo including your destination meesha aad inaad aado iyo wuxuu u yahay numberka ugu weyn okay ayada isfasiri doonto qeybaha dambe marka galna haduu ilaahay okay meeshaan fiiri marka longest match maxaa laga wadaa fiiri table-kan waxaa ku jira 3 IP address oo same 172.16.16.16 dhamaantood marka maxay leeyihiin prefix length leeyihiin kan maxaa yiri 172 ga waa prefix waa network prefix length maxay tahay waa subnet mask so hadda hadii lagu weydiiyo saddexdan network ay haysataan which is the best network oo aan ku gaari karna destination keena you are going to say 26 why because 26 has the longest prefix match okay calculation ku sameey hadii lagu yiraahdo this is how and binary ku bedelayna right now we don't care binary what we care is prefix length ka waran hadii prefix length ga same ay ka noqdaan maxaa calculation ku sameeynayna aan dhahayna this is the best path because saddexda wado isku mid waa si kala hadaa aad ku fasiro wadadan waxay geeyaysaa ama targetkeygu wuxuu yahay inaan gaaro for example ceelasha biyaha si aan u mar waxa mareynaa wadada number 4 soobe area samareyna ama waxa mareynaa wadada maxay ahayd number 4 inaan marno kadibna aan Madiina marno ama waxa mareynaa in aan qaadno wadadan maxay ahayd Daynila which is the best path ya ceelasha aad horta dhalinyaro ceelasha meeqa wada ku aadi karnaa
yaa waa ina waddada ugu fiican hay ceelasha yaa aad ma maqlaysaan horta nice ma u jeeda inaa hadashid waaya open waa codka hadda anaga hadda waqti xaadirkan number 4 aan joognaa the closest path yaa waay waa in wadadan tooskeeda la aan qabanaa sooma hay wadadaas heesanaa wadadii waa heesanaa way noo qoran tahay second best path yaa waay number 4 aan joogaa wadada labaad oo aanan ahayn inaan marasay biyaan areas tewa yaa dhulka kala yaqaan intee marayna madiina ma marayna laba option oo haysataa inaad madiina dhankeeda aadido jasiira xaggeeda kasoo gashid ama inaad dayniila korkeeda martido tradish dhankeeda kasoo gashid so saddex wada heesanaa oo ah tan hadda aan taagano number 4 inaad toos marno sooba marno maxay ahaday seebiyana marno weeyo saasa u marno wada waaye okay anaga maxaa xisaabinaynaa shortest path oo daatadeena lagu diri karo meesha aan taagana aw aqoonsanay inay tahay wadadaas 12 wadada sooba areas wadada madiino oo aan ka soo galayno maxay ahayd meesha hadda aad arbaa magaceedu ay gambisay inaan marno ayadana waa 18 okay in daynila aan marnana wadada saddexaad waa /26 which is the best path marka so right now hadii aan dhahno our best path is yawai daynila because daynila maxay wadataa longest prefix match yeah longest prefix ay wadataa anagoo joogno number 4 waxaa leenahay si aanan jam u galin because waa ogtiin sabiana sayta si aan jam u galin waxaa mareynaa jidka daynila mareynaa and this is our best path router kana sidaas u qaadanaya ay waa hadli kartaa wadada ustaale ma ala xisaabinaya wadada ugu dheer mise wax la xisaabinaya wadada ugu gaaban yes router okay kelimada ay idin sheegay longest match marka leena we don't mean in aan fiirinayno wadada ugu dheer routerka longest match wuxuu u yaqaanaa wadada ugu macquulsan ee daatada la marsiyo حرد ما بعد استاذ سفيع waxaa markaa wax la xisaabinaya ka ugu gaaban marka qaacidada router ku isticmaalaa waxay tahay wadada ugu macquulsan oo ugu gaaban oo waqti ugu yar aan ku mari karno si aan u helno waa in wado waafiya ah helnaa oo aan jam lahayn ya oo maxaa la yiraahdaa culays badan aanan saarneen si aan u helno waxa go'aan ku qaadanaa numberka ugu weyn oo ah prefix length-ga haddii prefix length-ga ee same noqdaan maxaa fiirinaynaa prefix-ka fiirinaynaa tawaran haddii dhammaantood prefix-ka same ay ka noqdaan prefix length-gana same ay ka noqdaan maxaa fiirinaynaa wax loo yaqaano administrative distance oo lagu xukumo muuqaalkeena jabtarkeena qaybihiisa kala ku baranayna hadduu ilaahay oo lagu xukumayo nooca routing protocol-ka isticmaalaya so now our best match is /26 all right so IP version 6 hadda isticmaalayna maxaa sameeynayna asiga IP version 6 ka markii uu rabo data inuu diro muxuu qiimeenayaa asigana prefix length-ga IP version 6 markuu rabo data inuu diro waana haysana numberkan inaan gaarno for example 2001 DB8 C00099 aan rabnaa inaan gaarno intaan wadana waa haysana wadada maxaa waay C000/40 C0/48 C055/64 okay which is the best match wax yara isbedelaya markii loo fiiriyo IP version 6 iyo version 4 okay so inta waxaa haysanaa laba wado oo valid ah okay only two of them are valid match inta number haysano laba baa valid ah labadaas maxaa lagu dooranayaa marka labada waxaa lagu dooranayaa number 1 qaacidada hadda aan soo qaadanin oo ah bedelkeeda meesha ay ahayn anaga longest match oo ah 48 iyo 46 bedelkeeda waxaa fiirinaynaa maxay ahayday ii sheeg godka saddexaad maxay tahay
dhammaantood boodka saddexaad same ay ka wada yihiin 1 2 3 same ay ka yihiin okay boodka saddexaad laakiin intay ku kala dugan yihiin you say 5 5 5 5 5 so this is your target mark IB ga muxuu ahaa kii hadaaye longest prefix match subnet kan fiirinayna version 4 ka subnet ka haday same ku noqdaan waxa fiirinayna IP address ka haday same ku noqdaan AD gan fiirinayna IB version 6 marka aan joogno the third root entry is not match iska laaf third kan iska laaf okay waxa fiirinayna anaga godka saddexaad qiimeysanayna godka saddexaad haday ku kala duwan yihiin this is our best match okay haddii aynu ku kala dugnayn fiiri kan oo kale hadda 555 ka godka saddexaad xisaabsanayna again maxaa manoo manage gareynayo ma manage gareynayo markii aan xisaabinayno maxay ahayd calculation keena markii aan xisaabinayno maxay tahay xagga prefix match ka oo 64 bit so waxa leenahay labada haday same yihiin waxa adeegsanaynaa prefix length ga adeegsanaynaa si aan routerka u gelino the best path so routerka soo u sameeyaa marka routing table soo u sameeyaa I know in IB version 6 ka xogo yar a bit confusing ay tahay so sessions keena haduu ilaahay marka aan dhameeno aan topigaas xoog wada saari doona haduu ilaahay so routing table see loo dhisaa marka routing table ka aan ka sheekeynayno see loo dhisaa routing table ka wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaan directly connected maxaa laga wadaa for example xaggan waxaa haysanaa router intan waxaa haysanaa router directly connected darabnina ogaano waxaa leenahay physical router kan wax ma ku xiran waxba kuma xirna waa zero router kan hadii fiila aan ka qaado aan ku xiro router ka kale lugtaana aan u aqoonsanay inay tahay for example f0/0 okay router ka marka mapkiisa ama routing table wuxuu gashan doonaa f0 inay tahay directly connected okay for example router kan waxa ku xiran IP for example 10 ku xiran labadana 20 communication ku sameynaya so IP ga 20 oo F0 ku xiran toos ugu xiran yahay ana aqaan okay laakiin 10 ani ma aqaan oo toos ugu ma xirno hadoona toos ugu xiran maxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay remote network hadii aad soo geliso meeshan 10 maxaa loo aqoonsanayaa inay tahay remote network inay tahay right remote network marka laba qayb ku baran kartaa oo ah static maxaa waay adaa waxa qeexayo si aad u hesho 10 wax sheegi doontaa network 10 wax sheegi doontaa subnet maskigiisa waxa sheegi doontaa exit interface yaani meesha uu ku soo mari lahaa exit interface maxaa laga wadaa static root markii la joogo 10 yaa haay waxa haay R1 ahaay R1 iyo R2 communication ma leeyihiin intee ka leeyihiin godkaani ka leeyihiin oo ah 20.2 iyo 20.1 for example ana hadda 20.1 ahay oo R2 ah oo aan rabo inaan helo 10 xago ii soo maraya R1 wuxuu ii soo maraya godkiisa 20.2 ii soo maraya this is wadada adiga ina manual u sheegto waxaan loo yaqaanaa static routing wadada labaad oo remote network oo lagu bari karo routing table kaada waa dynamic routing protocols maxay yihiin marka dynamic routing protocols waxay yihiin in router kasta aad u sheegto waxa asiga ku xiran aad router waxa kugu xiran laba network kugu xiran oo 1 iyo 2 kugu xiran router kana u sheegto inuu ku xiran yahay 1 iyo 2 inuu ku xiran yahay then ayaga marka waxay sameynayaan communication kaas marka waxay ku baranayaan remote networks ka midba midka kale oo haayo ayaga isbaraayo okay through the technology ay isticmaalaan okay yani nooca network aan iskugu xirnay ku xiranta adeerib tahay wada gooni isticmaaleyna hadii ay jarbi tahay wada gooni isticmaaleyna waan isla baranayna hadii ilaahay markii labadaas laga soo tago waxa jiro wada kale loo yaqaano default route ka actually waxa hoos tagtaa static route ay hoos tagtaa of course laakiin static route ki default route ka farqi waxay tahay static route marka sheegay waxa laga rabaa network ID ga laga rabaa IP ga oo now laga rabaa oo la yaqaano adeeso 10.0.0.0 waa iga maqan
default root laakiin maxaa waaye meesha aad sheegi lahayd network-ga IP-ga meesha aad sheegi lahayd waxaa sheegi doontaa a bunch of zeros, for example 0.0.0.0 maxaa laga wadaa macnaheedu waxay tahay war routerkan ani communicationka aan la sameynayo I don't need only IP addresses ka aad taqaan any IP addresses aad taqaan even kuwa unknown adi aadan aqoonin kusoo dhex marayo let me have it and qaata waayo waxaa loo yaqaano marka default root aa loo yaqaano okay default root maxaa loo isticmaalaa anoo kale hadda network admin ah shirkada jooga shirkada internet waxaa siiya jaamacad X ani local network-geeda waxba igama gelin marka ani communication aan la sameynayo waxaa u sheegaya static root-keeda inaan ka dhigo 00000 oo ah war idinka every single bucket aheedaan iisoo forward gareeya aniga internetka ah internetkeyga waa idin diraya shirkada ama aniga xarunta internetka siinaya ayadana waxay leedahay IP address-kaana adiga communication kula sameyna si adna aad igu soo dirto every bucket aheeso please default root isay okay haddii la dhihi lahay ka waran shirkada internetku siinaydo waxay isticmaalaysaa OSPF isticmaale adna OSPF isticmaal maxaa dhacay local area network-gaada dhana waxaa loo soo populate gareynaya shirkadeeda loo soo populate gareynaya routing table-keega wuxuu noqonayaa marka mid aad u buuxo culays u noqonaya wax fiicanna ma ahan in local network-gaada oo shirkadeeda ISP-ga oo soo dhex galo marka si aan u separate gareeno waxaa isticmaalaynaa default root maxaa waa I don't care waxa heedo isoo forward gareeyo I think ina ila fahanteen routing table-ka marka saddexdan qeyb lagu dhisaa in network-gaada oo noqdo network ku xiran router-ka aad network-gaada inuu noqdo mid aad banaanka ka baratay ama mid manually aad u sheegto wax yar waa idin soo laabanaya this is marka ways-kan isticmaal waana waxa aan rabnaa hadduu ilaahay course-keena in aan ku qaadaa dhigno marka aniga maxaa laga rabaa inaan fahanno how uu routerka u samaystaa intaas marka waa qaybta guud ee routerka markii uu rabo go'aan inuu qaato iyo markii uu rabo inuu samaysto maxay routing table wadooyinka umar hadda waxaan isla baranaynaa markii wadooyinka aan ogaano naqaanana sida loo sameeyo routing table-ka sidee marka routerka uu go'aan ugu qaadanaya daatada inuu diro muxuu isticmaalayaa uu technology isticmaalaya process-ka uu marana maxay tahay decision process routerka 5 step mari doonaa 5 step maxay tahay step ugu horeeya horta waxa waa data link frame maxaa waa daatada waxay ka imaan doontaa switch ka imaanaysa oo layer 2 of course mar waliba layer 2 markay ka imaato waxaa lagu encapsulate gareynaa kelimada meel ku qorta encapsulated maxaa waa data kale la daba dhigayo waa sidaan oo kale daatadan waxay ka imaatay switch ka imaato oo ah layer 2 anigana maxaa ah layer 3 ah layer 2 daatadeeda maxaa ku xiray layer 3 daatadeeda ku xiray ogaada taas marka wadada koowaad maxay tahay data link frame-ka la isoo diro waxaa ku encapsulate gareyn doonaa ama aan ku xiri doonaa IP packet maxaa waa for example MAC address waxa igu soo dirtaa aniga routerka MAC address ma karkareenayo MAC address-kaas muxuu ku lamaaneynaa IP address-ku ku lamaaneynaa 192.168.1.1 for example kadibna maxaa la sameynayaa ingress interface-ka la fiirinaya arrives on the ingress interface daatada intee ka soo gashay ingress maxaa waa input waa in daatada meesha ka soo gashay okay markii taas la isla meel dhigo oo ogaado godka meesha ka soo gashay daatadana IP-geeda uu ku attach gareeyo qodob kale oo routerka wuxuu examining ku sameynaa ama uu qiimeynaya intee loo wadaa daatada intee loo wadaa meesha loo wadaa IP address-keeda routing table-keyga ma ku jira yani khasnada map-keyga ma ku jira haddii mapka uu ku jiro muxuu fiirinayaa packet header-kaada wuxuu consultant la sameynaya packet header-ka intii laga wadaa packet header-ka laga wadaa routing table-ka laga wadaa okay adiga daatida keentay way soo gashay input-ki waxa la qiimeynaya war ma aqaana daatadan ma aqaan routerka intoona dhihin wuxuu la tashanayaa routing table-kaada si kale loo yaqaano packet header okay packet header-kaas maxaa waaye waxaa ku jiro fariintan intee la rabaa in la geeyo cidda la geelahay ma naqaanaa hadday haa noqoto routerka haddana wuxuu sameynayaa wuxuu fiirinayaa longest margin prefix okay IP-da meesha ku jiro IP-ga ugu sareeya ugu numberka weyn oo prefix length-giisa oo fiirinaya
haddii uu helo muxuu samaynayaa the routerka wuxuu samaynayaa in data link framekaada uu forward gareeyo markuu forward gareynayo muxuu isticmaalayaa egress interface maxaa laga wadaa output interface-ka laga wadaa meesha interface-ka daatadaada ay ka bixi lahayd kadibna waxaa la geey doonaa meesha loogu talagala daatadaada intan waaba haddii la helo haddii aan la helin maxaa dhacaya marka haddii la helin maxaa la helaynin mar waliba daatada entry way imaanaysaa mar waliba ingress wuu imaanaya mar waliba examining waa la sameynaa haddii laakiin daatada laga weeyay routing table-ka maxaa la sameynaa qodobka saddexaad ma la sameynaa maya qodobka afraad ma la sameynaa maya maxaa la sameynaa qodobka shanaad la sameynaa oo ah haddii la waayo wax maajina daatadaada maxaa lagu sameyn doonaa waa la drop gareynaa adina maxaa ku soo baxayso request time out iyo website-kan lama booqan karo shandan wado aan marayna wadada koowaad maxay tahay in frame-kii oo switch ka imaaday IP address lagu lamaaneeyo 192.168 wixii la midka kadib in la qiimeeyo horta hore daatadan la soo gashay routing table-kayga cid loo wada ma ku jira haddii haa noqoto maxaa la sameynaa qodobka saddexaad la sameynaa oo ah IP-yada aniga aan haysto si aan u gaaro destination-ka aan rabo ma heli karaa wadada ugu macquulsan anagoo isticmaalayna yaa ugu number weyn ها هذين وقت محل سمينا قضب كأفراد لو جود باو هلا فواد قريب ما هذين وقت محل سمينا قضب كشنا سمينا هلا ترترو باكت كان لما هاي مثلا أنت قضب كاس شن تاس قضب مرايا أنت أنا قضب كل وجود بين روتين كديزيشن كأقادنا يا نفهم decision making كعدي أفهمي جاني سيحسطها إني سؤالي يويديسو هذيك أنا ما هل قالوا له يويدين إنسان مركز مسؤولية وحفظ ما هي إنه هو فهمتين وين so process كان مركوا process كجوانك وكذا go-aan kan oo qaadanaya marka technology waxa jirto ilaa ay saddex technology ah jirto aan baradoona hadii ilaahay maxay marka routerka markuu go-aan ka qaato wuxuu sameeynaa wadooyinkan oo maraya marka wadada maxay tahay forward the packet to the device on directly connected networks daatada waxa loo gudbi doonaa directly connected networks dadka loogu talagalay okay routerkaadana hadhow wuxuu ku sii doonaa indication maxaa waay waxaan waa directly connected waxaan وواحد بناك نوجي ما ذو remote okay so directly connected كمركي الاستعمال of course router كذا حول أديك سدونا باكيتس كيس عادي IP addresses كا وأديك سنايا لكن هذه إيتاي وحكة بحسن ندوة جد عادة router كذا محسمين آيا حلو يقانو Ethernet framing Ethernet frame محاول Ethernet frame و IP address كا ولوجي MAC address كا ولا دحمر سين كابل اسكادا نوع كابل استعماله اوكي هدي اي تاي كوبر كابل ايثرنت فريم كان maxaa laga dhigi doona koronta laga dhigaa hadii ay tahay كابل kaada fiber ايثرنت فريم kaada maxaa laga dhigayaa ilaysa laga dhigayaa okay so kadib routerka wuxuu sameeynaya determine the destination MAC address cid aan u socdo MAC address kooda aan waxaan ku associate gareena ama isku xiraya sida inta ku soo sheegay destination IP address keys okay maxaa qof kan ani u socdo IP u leeyahay for example IP giisa 10 MAC address kiisana AF waa labadaas isku lamaanayna markaas aan daatada forward gareena okay processes marka la isticmaalayo IP version 4 iyo IP version 6 way kala duwan yihiin is okay waa isla baranayna waxay ku kala duwan yihiin haduu ilaahayno on the way then process ka hadda soo marna maxay ahayd directly connected dadka aniga ugu xiran network-iga ku xiran aan data u diray iyo dad ka baxsan ka waran network-iga aad ugu fog ugu qodobka hadda ku sheegay maxay ahayd waxay directly connected ka haday ku isku xiran for example router kan ku xiran yahay simple okay router kan wuxuu ku xiran yahay again switch ku xiran yahay switch again wuxuu ku xiran yahay computer ku xiran yahay this process aan marayna okay labada hadii data isku dirayaan maxaa waay normally waa directly connected okay so router kayga still hal barana jooga hal daaga jooga okay router kayga data u dirooya
daatada wuxuu diraya computer inta yaal u diraya right daatada muxuu sameeynaya ethernet frame kan uu ka dhigaya haddii tahay ilees haddii tahay koronto waxay tahay kadibna waa la forward gareynaya qofka loogu talagalay la geenaya iyadoo la fiirinayo MAC address-ka in iyo out qaybtan kalena maxaa waa next hop address maxaa waa for example inta waxaa ku leeyahay network A oo isku xiran intan waxaa ku haystaa network B oo asagana isku xiran okay so A iyo B waxa isku xirayo labadan router isku xirayo this is waxa loo yaqaan marka next hop maxaa waa si A oo communication ula sameeyo computer yaala B inta uu maraya waa inuu routerkan u soo maraa oo loo kaliya kadibna uu ka baxaa godkan oo ah egress maxaa waa output interface kaado right process-ka marka maxaa la sameeynaa technology-yinka la isticmaalayo maxay tahay technology-yinka la isticmaalayo waxa kamid ah in la adeegsado wax loo yaqaan ARP address resolution protocol ARP ga shaqadiisa muxuu ahaa dhalinyaro chapter 1 aan ku soo baranay in IP ga hadii aan haysto ama aan aqaano IP ga network B in aan raadi MAC address-kiisa hadii aan aqaano MAC address network B in aan raadi IP address-kiisa okay and this is the process of ARP shaqadiisa marka waa inta inuu jeegareeyo dadka aan rabaa in gaaro aan communication la sameeyo ma yihiin dad aan la xiriiri karno okay this is process marka oo decision kaga qaadanaya router-kaada hay intaas ba hadii la waayo maxaa dhacayo way iska caddahay no margin weene packet-kaada waa la drop gareynaa shantii process ayadoo furfuranna waa inta way end to end packet forwarding ajar marka waxa loo yaqaan end to end packet forwarding maxay tahay end to end packet forwarding iyo process-kaada soo marayna farqi yar u dhaxeeyo cable-ka isticmaalaya for example waa serial cable ka markaan isticmaalayo laba mowjada isticmaasha mowjada loo yaqaan BBB iyo mowjada loo yaqaan HDLC BB maxaa ka soo gaabinay point to point protocol HDLC maxaa ka soo gaabinay high level data link control all right so this is marka wax loo yaqaano end to end labadan kaliya communication ku sameeynay okay hadii inta ay taalo computer haduu yaalo oo isticmaalayo copper cable haduu isticmaalayo copper isticmaalayo it means ma ahan BB ma end to end ma okay these marka protocols ka kala duwan cables markaan isticmaalayno way marka data forward gareynayno forwarding marka waxay leeyihiin dhalinyaro wax loo yaqaan mechanism wadooyinka dhan aan marayno saddex mechanism aan isticmaalnaa mechanism-ka maxay naga caawinayaan daatada aan dirayno qaabka u diri lahayn okay mechanism ugu horeeya waxa loo yaqaan process switching waa old okay sawirkiisa arkayna mechanism kan dhibaatadiisa maxay ahayd process switching ka let's say this is router-keeyo router-ka wuxuu leeyahay idin meel ay daatada ka soo gasho oo ah in iyo meel ay daatada ka baxdo oo ah out iyo muxuu leeyahay meel daatada lagu process gareeyo iyo meel daatada lagu store gareeyo storing okay process switching horta waa hadda cid isticmaasho ma lahan okay daatada markay soo gasho ma la store gareey jirin maxaa la sameynaa automatic waa la process gareynaya CPU ga qabanaya waa diraya again isla packet-kii hadaa rabto inaad dirto wadadii inaad barato soo maaha oo aad keep gareyso aad dhahdo waxaa maray wadada oo best packet/26 may mar labaad maxaa haddana inaad process gareeyo CPU ga u dhiibto mar saddexaad wadooyinkaada yacni ma lagu save gareynayo markii la joogo process switching shaqada yaa qabanayo CPU ga qabanayo okay control plane-ka shaqada qabanayo data plane qabanayo data plane maxaa waa data plane macnaheedu waxay tahay wadadan mar hadii la barto way store gareynay bari marka aad inaad gaarto wadadan wadada lagu marsiinayo this is market process switching waa nooc aad u badan network-na jam ka dhigayo waqti xaadirkaana applicable ku ah network-ga muddo markaa joogno waxaa sameeyay wax loo yaqaan fast switching maxaa sameeyay data plane-ka soo kordhinay okay data plane soo kordhinay maxaa waaye data increase waa soo direena marka ugu horeyso data plane ma loo dhiibayo data plane waxa loo dhiibayaa wixii la bartay mar waliba data CPU ga loo dhiibayaa CPU ga algorithm-kii isticmaalaya hashing algorithm-kii kadib wadadii ogaana wadadii markuu ogaado
beri data plane-ka loo dhiibaa waxaa leeyahay waddadan aan barano oo aan ku gaari karno x tomorrow datadaada labaad controlka looma dhiibaayo toos maxaa loogu dhiibayaa data plane-ka loogu dhiibaya this marka waxaa loo yaqaanaa fast switching waxay soo kordhiyeen waxa la yiraahdo fast switching cache maxaa waaye in la dukumenti gareeyo la diiwaan geliyo waddo kasta aan barano tan maxay naga yareysa marka processkii hore oo ahaa each waddo in markastoo oo CPU-ga la marsiiyo oo la yiraahdo ma naqaano tan marka waa ka gudubnay hadda waxaa isticmaalaynaa barnaamij la yiraahdo Ceph maxay tahay marka Cisco Express Forwarding hadda each switch ama router kasto ee shirkadda soo saarto muxuu ku base gareysan yahay Ceph oo ku base gareysan yahay Cephki muxuu sameeyay dhalinyaro Ceph wuxuu yiri horta control plane dhan ma taabanayno okay Ceph wuxuu leeyahay waxaan akhrisanayaa ama data plane ka sameeynaa wax loo yaqaano FIB oo ah forwarding information base wuxuu leeyahay haddii routerkayga oo kan yahay router X soo ma lahan routing table routing table ka dhan oo copy ka soo qaadanaya ma badhahay macnaha ma aqaana iraadi macnaha if routerkayga active uu yahay uu leeyahay routing table datadiisa dhan oo soo qaadanaya data plane-ka uu keenaya qayb loo yaqaano FIB oo ah forwarding information base meeshaas oo xogta dhiganaya tomorrow adiga daarta inaa communication sameeyo maba lagu diraayo control plane automatic maxaa lagu dirayaa FIB ga lagu diraa haddii FIB ga data laga waayo maxaa sameynaa control plane lagu diraa automatic routing table ka lagu diraa routing table ka hadana update laga soo qaadayo inta lagu keenayo meeshan maxaa badbaada marka datadii maanta dhan control plane ka loo diraayo tii hore maxay ahayd marka ugu horeysa control plane lagu keenayo tii ka soo horeysa maxay ahayd every single time oo aad rabto inaad data dirto waddo cusub waa lagu sameynaya even waddadii hore u baratay amaanto dhan waddo cusub loo diiwaangelinaa tii hore maxay ahayd data plane-ka cache ka sameynay cache-kaas sidaa la dhihi karaa waa tirtiri karaa laakiin tan maxaa waaye tan mar waliba waxay ku xiran tahay routing table-ka haddii routing table-kaad intii cusub ku soo dirto automatic maxaa loo geenayaa data plane-ka la geenayaa tomorrow waxaa naga yaraanaya in mar kale aana la weydiinin maxay ahayd waddaa dhuntay iyo wadda ma dhumin every packet dhumaaba يعني every packet aan baranaba meeshaan aan keenayno marka waa mechanismska aan isticmaalno si aan data u forward gareyno inta waxaan kaga baxaynaa marka decision making routerka 5 decision oo qaata summary haddii aan sameeyno decisionka koowaad oo qaadanaya maxay tahay horta datada markay soo gasho let me show you datada markay soo gasho wuxuu sameynaa in uu document gareeyo oo yiraahdo intee ka soo gashay ID packet-keedu ku daro laba muxuu sameynayaa in uu routing table-ka jeegreeyo oo yiraahdo datadaan aan rabaa inaan direemo mataqaana saddex maxaa waaye ID-da ugu macquulsan ama ID-da ugu number dheer in la marsiiyo afar maxaa waaye datadaada interface-ka ka bixi lahayd in la diyaariyo haddii intaas la weydiiyo numberka koowaad haddii la helo 2 iyo 3 lama sameynayo number 5 la sameynaa intaas marka si loo sameeyo waxaa la isticmaali doonaa mechanism kan oo ah process switching maxaa waaye every time wadada aan mari lahayd process switching wuxuu soo kordhiyay in cache la sameeyo then waxaa imaana Ceph oo ah inay sameysato wax loo yaqaan FIB ama forwarding information base oo lagu kaydinayo dhammaan routing table-kaada xogaha ku jiro hadda waxaa u imaanaya marka basic router configuration kan idinka idin deenaya okay each and everybody waxaa rabaa topology-ga waa idin soo share gareeyay inaad sameysaan okay hadda waxaa ii sheegtaan R1 meeqa network aad direct lagu xiran routing table-kiis maxaa waaye R1 yaa ii sheegi kara meeqana waa si toos ah ugu xiran ay network kuwaad ana bilaaway network kuwaad waxa direct ah 10001 waa direct connected ay network galwad oo router 1 direct connected ay sheegi kara ay okay 10 2 10 3 maxay yihiin waa direct connected sooma ay maxaa kale oo iloweysiin aan dare IP version 6 ay iloweysiin ay sana direct connected waa sooma
so tan maxay naga caawinaysaa now haddii aan configuration ku sameyno oo aan dhahno show ib root waxaan arki doonaa saddexdan nadwaaga waxaan ku arkaynaa routing table routerskeena casriga maxaa dhahno maxay isticmaalaan barnaamij loo yaqaano mechanism loo yaqaano safe maxaa waaye routing table-ka data kasta aa sameeyda waxaa loo dhiibaya wax loo yaqaano FIB forwarding information base so kan marka diagramkan configurationkiisa idinka rabaa next time qof waliba waxaa rabaa inuu configurationka sameeyo marka aniga conceptiga qori doonaa hadduu ilaahay idmo si aan maaragtay noogu fududaato waxaan oo dhan hore usoo sameynaa of course okay commandska aad configuration ku jeegaree doontaan waa kana soo caawa theory-gan ka baxaya hadduu ilaahay idmo commandska waxaa loo yaqaanaa filtering loo yaqaanaa section include iyo exclude qaybta practice-ka aad igu sameyn doonaa hadduu ilaahay idmo section maxaa laga wadaa for example waxaa rabtaa interface inaad ogaato interface-kaas asigana marti inaad ogaatid kaliya waxaa rabtaa inaad ku ogaato speed okay so waxaa qori doontaa interface show interface for example f0/0 calaamad waxaa adeegsanaynaa oo byba kadib waxaa leenahay include for example include maxaa waaye kaliya iisoo bandhig speed okay wixii tirada badnaa dhan waa lagaa reebayaa okay include waa exclude maxaa waaye iga reeb speed wixii speed ka dhan iisoo saar begin maxaa waaye haddii speed aan bilaabo wixii speed ka sareeya iska ilow laakiin wixii speed ka hooseeya dhan iisoo bandhig section maxaa waaye qayb kamid ah bis iisoo bandhig this marka filtering command in use waaye waana waxa ugu macquulsan uguna fiican anaga aan isticmaali doonaa hadduu ilaahay waxaa u imaanaynaa marka routing table ib routing table okay routing table soo u dhisan yahay waa qodobka ugu muhiimsan imtixaanka challenge idinkaaga imaan doono inta ku guda jirana Cabdinaasir su'aal ka weydiinayna oo ah shakhsiga hadda baase imtixaanka hadduu ilaahay waaye routing table ka hortooda waa root source-ga waa maapka ama waa isha routerkaada go'aan oo ka qaadan lahay yaa igu xiran yaa lagu xiranahay yaana data u diri kara routerkaada sida hore kugu soo sheegay saddex process uu leeyahay process koowaad waa network-iska tooska ugu xiran process-ka labaad waa static route maxaa waaye manually adaa waxa u sheegayo daatada meesha ay ka imaanaysa ee meesha ay mareen dynamic routing protocols maxaa waa protocol aan baran doono oo annaga aan u sheegi doono routerska kadibna ayaga ay communication ku sameynayaan routerkaasna hadhow wuxuu isticmaali doonaa wax loo yaqaan AD administrative distance kaa waxa ku baranayna each routing table wuxuu leeyahay maap uu leeyahay maabiska aad arki doontaan waxa ugu horeeya L maxaa laga wadaa L identifies address assigned to a router interface interface-kayga hadduu yahay f0/0 haddii ib aan ku shubo ib-gaas oo 1 uu yahay waxaa loo aqoonsan doonaa local for example 1 okay L hadda aragtid waxaa laga wadaa interface-ka ib-ga aa siiday L laga wadaa kan we need to practice this backtracer soo furanayna okay so interface-ka markii ib aan geliyo 1.1 hadaa geliyo 1.1 L aa loo yaqaana laakiin 192.168.1.0 ani ma aqaani 1.1 aa isticmaale 1.1 waxaa network-giisa original loogu aqoonsan doonaa inay tahay C directly network okay let me show you so router-kayga soo furta CLI-ga tagay waxaa leeyahay no enable show ib interface brief fiiri laba interface uu leeyahay hadda interface-ka wax ib ama ku jiro waxaa leenahay config terminal interface G0/0 ib address 10.0.0.1 255.0.0.0 annaga interface-kan maxaa siinay 1 aa siinay soo ma let me make it before aanan siinin waxaa rabaa routing table-ka inaa idin tuso calaamadda wixii aad ka hormariso ma loo assign gareynayo waxaa leeyahay do show ib root hadda routing table-kayga m2 waa mujeda L ma u jeedi okay C na uma jeedi laakiin interface-kan marka ib-gan ku shubo fiiri ib-gan marka ku shubo oo ay iraahdo no shutdown kadibna aan jeegareeyo maxay waxa ka baqan interface-ka inaan ku xiro computer inaan ku xiro soo app u noqdo G0/0 soo hadda fiiri marka routing table-kayga maxaa soo galay CEL anima sameeyay may C anima sameeyay C intuu ka imaado
every IP qorto muxuu leeyahay asalkiisa hore ku soo baranay muxuu leeyahay wax la yiraahdo network ID muxuu kaloo leeyahay broadcast ID okay muxuu kaloo leeyahay first usable address iyo last usable address so every network isticmaasha ama one isticmaal ama two isticmaal maxay leeyihiin network ID leeyahay originally 0 ka bilaabanaya and this is why our arkayna C maxaa marka waa connected network gaada originally asalkiisa meesha ka bilaabo even firi IP address ka hadii aan subnet ka bedelo oo aan ka dhigo for example 255 let's say 248 hadii aan ka dhigo oo ay raado show IP root inta 21 arkaya 21 maxay tahay waa subnet ka aan sameeyay subnet ka maxaa ka horeeyo original IP glass A way subnet mask glass fulkiisa loo qorayo dented alo yaqaana okay dented alo yaqaana this is the C adiga aad taqaan sida maxaa ka sareeyo original IP ga isticmaaloodi glass uu yahay /8 way waa 1255 laakiin anaga maxaa isticmaalnay 2255 iyo 248 isticmaalay 248 marka maxaa waay waa 211 markii sida ka loo qoro L ka fiiri marka /32 maxaa waay it identifies interface okay maxaa kale S waxaa laga wadaa hadii adi aad qeexdo IP ya u baahan tahay for example advanced ka dhigana waxa leena IP root 0.0.0.0.0.0 waxa ay soo marsiinaysaa for example G0/0 ama G0/1 maxaa ka wadaa waxaan dooyaa ama aan dalbanaya static routing waa protocol waaye protocolkana waxa uu sheegayaa network kasto oo aan aqaano iyo aan aqoonin baa la isoo marsiiyo godka marka sidaas dhaho oo routing table-kayga aan jeegareeyo of course that interface kaas waa dansan yahay that's why okay let me make it myself okay so marka intaas dhaho maxay soo galay S ay soo galay S maxaa waay waxa qeexday ama aad sheegtay si manually waxaad u baahan tahay image ay ku soo mari lahaayeen mujada meesha ay soo mari lahaayeen this is routing table-kayga ee magacyada aan ku aqoonsanayna hadhoodii hadda S arkuna static hadhoodii waxaan soo galaysa R oo rib ah M oo mobile ah BB oo BGB ah N1 oo OSPF ah waxaan oo dhan D oo EIGRB ah OSPF oo sidaana waxaan oo dhan noo soo galay anaga okay waa inaan baranaa marka وانا waxa ugu muhiimsan noo laga baahan yahay inaan fahmo okay routing table ka marka principal uu leeyahay principal ka maxaa hadii data ay soo gasho router kaada fiir meesha router kaada decision kaligiis qaadanaya asiga kaligiis qaadanaya markuu decision kaas qaadanaya intuu ku base gareynaya information ka asiga routing table kiisa ku jiro for example R1 kaliya naftiisa ama mapkiisa asigoo haysto oo go'aan qaadanaya maxaa way go'aan ku qaadanaya the best route R1 markuu go'aan qaadanayo router ku xiran dartiisa go'aan ku qaadanaya ma dhahayo aniga anadu agaana router kaas anadu agaasa saas u yaqaana waa marsiinayna ma dhahayo maxay asiga naftiisa go'aan qaadanaya information kasto oo lagu helo routing table kaada kuma xirno routing table ka information kiisa hadii aan jilciyo waxaan ka wadaa aniga dhaqankeyga iyo sidaan u dhaqmay sidaan wax u sharaxo iyo adigoo macallinaasa wax u sharaxay waxba iska magelin laakiin waxa ka simanahay macallimiin inaana saddexaad maxay tahay routing table kaada ama routing information kaada xogta oo haayo kuma xirno ama muhiim ma ahan xogta oo ka helayo routerka kale inuu ku go'aan qaato okay this is how routers ka u shaqeeyaan meelaha kale ugu muhiimsan routing table waa tan oo imtixaankan ku imaan doonto oo aad muhiim u ah router ka wuxuu yeelan doonaa dhalinyaro wax loo yaqaan root source waa numberka ugu horeeya let me make it practice okay root source maxaa laga wadaa this is your root source anaga maxaa haysanaa C haysanaa ama L haysanaa ama S haysanaa kana muxuu noo yahay
root source maxaa laga wadaa root source waxaa laga wadaa how the routers were learned routerkaada see loo bartay routerkaada see loo bartay يعني routerkaada see loo bartay markaa dhahay networkan adiga aad dhus networkan aan raba inaan gaaro see loo bartay anaga hadda waxaa ku baranay static root oo loo yaqaan default root ku barana maano good kala wad maxaa waay destination network ama prefix length kan waxaa laga wadaa remote networkaada aad taqaan iska dhaaf networka aad barato nooca aad ku baratay iyo networkaada oo aad rabto inaad gaarto oo maxaa waaye oo banaanka okay so waa root source-gi maxay waa prefix-kii oo remote network ah qodobka la wadaagaysan Soomaa qodobka saddexaad maxaa waaye administrative distance AD maxaa laga wadaa AD waxaa laga wadaa routerkana isticmaalayo wuxuu yeelanayaa administrative distance chapter qaybta ku xigta ku baranayna administrative distance qaybaha hoose ku baranayna alright andafo administrative distance waxaa laga wadaa haddii routerkayga oo IP-diis go'aan fiican lagu qaadan waayo cidda dambe oo go'aan lagu qaadana waa administrative distance routerkayga aan fiiriyo hadda maxaa u jeedaa wax administrative ama u jeeda laakiin haddii practice-ka aan sameeyo forget about it administrative distance waxaa ka dhigayaa 100 ka dhigaya waxa hadda qoraayo muhiim ma ahan laakiin ficilkiina ay loo gaataana muhiim ah hadda routing table-kayga markii aan fiiriyo again waxaan raadinayaa network kala inta ku qoraya network default root aan ku barto xalay 10.0.2.0 subnetkiis 255.255.255.0 okay hadda fiiri laba network aan soo geliyay midna waa static root asna aan ka dhigo 200 aan ka dhigo ana idin fasirayo waxa uu yahay intan ma isoo galayo why inta ugu soo galeynin because meeshan waxaa rabaa spaces inay ka baxdo numberka uu soo geliyo dhibana practice-ka guud markaa ku sameynayna fiirinayna midna 100 ka dhiga midna 200 ka dhiga meeshan waxaa rabnaa mustaqbalka inay noo soo gasho number sidaan u qoran administrative distance okay issue malan ogaada administrative distance waxaa laga wadaa haddii IP addresses-ka iyo prefix-ki same ay noqdaan waa meesha go'aanka laga qaadan lahaa protocols-ka isticmaaleed saddex protocol haddii ku yaalaan which is the best routing protocol oo la isticmaali lahaa kadib maxaa fiirinaynaa matrix maxaa waay matrix-ka waa tiro number tiradaasoo naga caawinaydo inaan ogaano bandwidth-ka network-an oo namarsiinaya intee laga helaa marka intee laga helaa administrative-ka waa fahanay administrative-ka waa godka koowaad matrix-kan waa godka labaad matrix-ka maxaa marka waa bandwidth-kii waa reliability-gii waa delay-gii iyo wixii la midka ah okay good meelaha kale muhiimka maxay tahay next stop maxaa waay kan adaa baratay waa lagu baray banaanka ka baratay routing protocol-kaada waa aragtay waa OSPF waa 110 matrix-kiisu waa aragtay intoo ku mara yaana ka baratay intee ka baratay okay fiiri hadda waxaa dhahay 10.2 aan rabaa 10.2 animally ani 10.1 aan leeyahay 10.1 waa directly connected oh my god haddii aan dhahano waa dansan yahay no okay laakiin it's okay so meesha marka waxa ku soo gali doona IP-ga aad ka baratay hadda directly connected waayo ku leeyahay is okay directly connected waayo okay practice-keena aad si fiican ugu furfurayna right so directly connected waayo ku leeyahay okay so directly connected dadooya macnaheedu waxay tahay ana local u baranayo it's in my roots laakiin haduu yiraahdo office waxa ku soo bixi doona meesha aad ka baratay root-ka aad ka baratay kadib waxaa noo soo baxay root timestamp goormay root-kan la soo geliyay daqiiqada la soo geliyay meesha ay soo galaysaa anaga hadda daqiiqada la soo geliyay ma noogu jirtaa let me check time-ka iguma jirto laakiin hadhoodii arkayna hadduu ilaahay insha Allah kadib maxaa fiirinaynaa intoo ka baxaya exit interface-kaada intee waa gudka u dambeeyo aa ka baxayda maxay tahay exit interface intii hadda anaga ma haysanaa aan surprise gareeyo godka koowaad waxaa loo yaqaanaa root source godka koowaad maxaa loo yaqaanaa root source yaa loo yaqaanaa godka labaad maxaa waaye waa destination network cidda adiga aa baratay okay godka saddexaad maxaa waaye administrative distance meeshaana noo soo gali doontaa godka afraad maxaa waaye matrix godka shanaad maxaa waaye xagee ka baratay okay intee ka baratay anoo kale hadda intee ka barata hadii la dhaho maxaa leeyahay
waa directly connected maxaa waaye waa he directly connected toos ugu xiraya exit interface kayga waa kaya godkaas uu ka baxaya okay ayaa su'aal iga weydiinaya okay no worries markastoo aan practice bilowna hadduu ilaahay idmo ayada imaan doonto by default laakiin hadda aniga waxaan rabaa concept inay la fahantaan insha allah this is much important abnaasir su'aal weydiinayna abnaasir imtixaankaada ma ku aragtay sidaan oo kale in lagu weydiiyo routing table maps in lagu soo bandhigo la yiraahdo which is the best path yes so the best path marka saa go'aan ugu qaadato waa inaad taqaanaa processkan muxuu yahay network-ga isticmaaleedo IP-ga prefix-kiisa maxaa waaye administrative latency-ga metrics-ka meesha aad ka baratay lanit-ka ah okay timestamp-ka exit interface-ka okay inta hadda kasoo sheekeynayna waa marka directly connected si loo yaqaana laakiin ogow directly connected kaada sida 0da mar waliba waxa ka hormari doono original IP address-kaada waya static routing ka hadda aan baranayna marka concept-giisaan dul marayna haddii ilaahay maxay tahay marka static protocol routing table-ka soo faahna hadda waxaan baranaynaa language-ka marka routers-ka ay ku xiriiraan language-ka ugu horeeyo waxa loo yaqaanaa dhalinyaro static routing marka aad soo sameeyay directory connection-ka interface-ka aad soo daarto IP aad soo siido static route aad isticmaalaysaa why static route isticmaalayna static route waxay loo sameynayaa routing table-keeda inay noo maintain gareyso ee ka dhigto mid small maxaa every IP 10 xaba meesha u baahan tahay default route aad isticmaalaysaa simple maxay adaa waxaa qeexaya wadada lagu soo mari lahaa adaa waxaa qeexaya subnet mask-gii adaa waxaa qeexaya IP-gii adaa waxaa every single thing adaa qeexaya qodobka labaad maxaa waaye haddii aan u baahannahay multiple networks inaan barto laakiin aanan u baahnayn dhammaantood routing table-kayga inaan geliyo maxaa sameynaa default route isticmaalaa default route maxaa waaye waxaa loo isticmaalaa destination-kaada haddii uu ka baxsan yahay upstream-kaada upstream-ka maxaa waaye shirkadda internet ku siinayso ani qolada internet-kaasi haddaa 000 u isticmaala macnaheeda waxay u dhigantaa wax allaala wixii ani ahaayo haddii isticmaalayaan BGP haddii isticmaalayaan RIP haddii isticmaalayo yani every single thing ahaayo waa kugu soo fasaxaya waaye no filtering qodobka saddexaad maxaa waaye static route waxaa loo isticmaalaa markaa isticmaaleed waxa la yiraahdo stub network maxaa laga wadaa hal entry leh haddaa haysato for example inta waxaa ii yaalo switch ii yaalo inta local area network-gayga waaye haddii aan leeyahay hal il oo internet-ka aan kaga xiriiri karo noocana waxaa loo yaqaanaa stub okay stub loo yaqaanaa intan waxaa dhigaynaa default route waxaan leenahay stub-keena anything hayso noo soo fasax alright static route marka waa kana fiiri router-kan hadda right now network-gan aan calaamadeeyay muxuu yahay DC u yahay waa directly connected okay including this kana fiiri intana maxay u tahay directly connected including this because labadaba maxay xiriir ku sameeyeen 3 xiriir ku sameeyeen so computer 3 marka hore inuu la xiriir computer 1 ma yaqaana ma yaqaan si oo communication ula sameeyo muxuu sameeynaa waa inaan barnaa manual oo barnaa router 1 aan joogaa waxa iga maqan 10004 routing table-kayga kaliya waxaa ku jiro 10.1 iyo 10.3 la ku jiro bis waxa ka maqan 4 ka maqan 4 markuu iga maqan maxaa adeegsanayaa kelimad la yiraahdo IP route kelimadan macnaheedu maxay u dhantaa waxaa rabaa inaan barto wadadana waxaa rabaa in la ii soo marsiiyo network-gan iga maqan oo ah XYZ network-gaas wuxuu leeyahay IP address oo sidaan ah network-gan markii la rabo in la ii keeno ama aan rabo inaan barto waa in la soo marsiiyaa aniga router-kana ahay waa in la soo marsiiyaa godka router-kii ugu dhow oo loo yaqaano exit interface ama loo yaqaano next hop okay mila fahanteen next hop loo yaqaano so hadhow marka ani data diraayo godkaana ku soo dhacay godka marka ku soo dhacdo kana loo diraa kan wuxuu fiirinayaa number-kan ani ma aqaana routing table ku fiirina hadduu aqoonin muxuu sameeynaa drop gareena hadduu yaqaan muxuu sameeynaa
وترانسميت جرينا ميلفان تاني static routing وبروسيس كاس dynamic routing إمام مرك dynamic routing محاور dynamic routing ماشي أول شيء الروتر كان ندوة كان كامل ماشي هذا هذا في الروتر كان محوي قانا 5 E4 ويقانا كان محوي قانا 1 E2 يقانا ما هنو static routing مركز استعماله إنه حواجبه 4 إن أمبرنو 5 إن أمبرنو router 2 إن أمبرنو 1 إن أمبرنو 2 إن أمبرنو إيه توما لكن ما أنتم حاسمين هنا مركان جونا dynamic نوع على النوع dynamic protocol استعمالنا هاته router كان جديد سجلنا وحفرنا dynamic protocol كاستعمالنا for example هدوية ريب أو حفرنا بشخط أو حالنا فيري هذه واحد قانا 10.1 10.2 لما يقانا بس على الشيء وأنا اللي حرا كانوا حلو فرع سجنا ريب على فرع for example أوكي لما ندوق يقانا على الشيء then محي سمينا أيها communication سمينا router كان يقول لي hey welcome router 2 اللي هذا وحسباله يا ريب and I have all these networks please إيجا قال router 2 وانا محول لي أوكي أنا حسباله يا ريب وحاقنا all these network please إيجا قال then exchange سمينا يا process كاسنا إلو practice أو أركض دونا إلو قال dynamic routing كمركب وكم حتى أنا right now استعمالي static route yes واستعمالنا لكن network هذا هدي أو كبده لبر router you don't need to استعمال static route وأنا استعمال dynamic dynamic مركب واكنا إيه طلبتي هذا أنصب برني نواكنا okay this is routing table كانوا حلو يقانا root source يالو يقانا okay كانوا حلو يقانا remote network okay destination network كانوا حلو يقانا administrative distancing OSP فاستعمالنا كان ومترك اسكي كان وماشي عن كبرتي network okay كان وتايم ستامكي ودقيقة network عن برتي كان وأكسس interface كي سان وأنا أشرح كرتها سان هي وأنا أشرح كرتها فيري OSPF على كبرتك network عن 4 network 5 وحاجة يالنا إسلا أسيقنا محا كبرتك OSPF على كبرتك فيري لما ضد محاوي وسيم متركس وسيم بريفكس length وسيم متركس أوكي سيم مدة كبرتك same time برت لكن مليسكنس أو دحية same interface إيمرايا you see that this is self routing جديد أو بهنا إن أمبرانو default route إمام مركز default route محلي كليه وحلو استعماله مركي أعرفته هذا فيري dynamic أم حوبرنا ندوا جسكان أنا أوبرنا واقع حماهنا ما أنتوا حاروا routing table كي أو R1 إن سوقلي every single route لكن مرة أي بي إن ماشي كم مقدار كليه وحموقدون هادو 0.0.0.0 0 داش محول دغنتا every single network كي مانا interface كان هلو سو غدبي كان sidoo kale every single network كي مانا router كان هلو سو غدبي waxa meeshaas ka baxay marka IP10 iyo IP20 IP30 waxa soo dhan marka waxa waay we don't care why okay that is wadada kuwaad wadada labaad isticmaalayna maxay tahay hadaa heesano one gateway oo internet ka kula xiriirayno because teamka internetka muhiim ma aha adiga IP-ga 20 30 40 inay yaqaan alright waxay ku leeyihiin every single IP taqaana noo soo forward garay and this is the default route structure ka marka IP version 6 ka markii routing table kala gelinayo kelamadan ila ogaada indented ala laga dhigaa indented maxaa waay waa la isku buusaa hadii IP-ga uu yahay glassful haduu yahay ABC ya ABC haduu yahay maxaa dhacayo show IP route haduu yahay fiiri ana maxay isticmaalaa glassless isticmaal glass la isticmaalo korkiis maxaa laga dhigay ay version 4 oo glass si laga dhigay we already know every network inuu glass ka imaanayo anaga subnetting aan sameeysan subnetting aan sameeysano network inuu subnetted yahay waa ujeedna indented ka dhigayna korkiisa waxa saarayna original mesh oo ka imaaday you see that that's what we call mark indented okay /32 maxaa laga wadaa /32 waxa laga wadaa local interface ka aan gelinay IP-ga 10.0.0.1 aniga gelinay 32 anaga ma sameeysanin 32 marka maxaa laga wadaa any IP address oo match garana this broadcast
any IP address oo match garanaya this IP ama rabo inuu communication la sameeyo waa meesha loo soo marsiin lahaa. Alright, this is marka indented ka noola sheegayo aan weyneyno waa inta aad ku soo aragnay. Indented maxaa waaye adiga ID gaana sameysay, you see adiga ID gaana sameeyay C aa sameeyay sidii maxaa laga kormariyay originally laga kormariyay haday lacala inta /12 ahaa leh inta /24 ahaa leh say /24 ku imaatay because ID gaan asalkiisa glass ku ku imaaday. This is marka we called indented ami structure ka. So ID kasto marka wuxuu yeelan doonaa child iyo wuxuu yeelanayaa parent. Okay, ID kasto wuxuu yeelanayaa child iyo parent iyo yeelanayaa. Child ka maxaa laga wadaa indented maxaa laga wadaa indented ka numberkan hadda arkayno waa child inta ku imaaday this number ku imaaday originally. Okay, kana muxuu yahay parenting uu yahay waa parenting ya child noqonayo cidii indented ka laga dhigaa child noqonayo. You see that? That's marka internet protocol version 4 markaas soo version 6 waxaas ma lahan. 6 waa very clear. Okay, ID marka qorto one line uu kugu sheegay this is your ID, this is your meesha lagu soo marsiinayo oo ah administrative distancing. Yes, this is more important kanaan ku ekeysiinaa haduu ilaahay administrative distance maxaa waaye. Administrative distance waxay tahay markii network-gaada aad qorato prefix-keeda iyo maxay aad prefix length-ga labadoodaba way soo muuqanayaan. Laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano routing table-keena haddii dhowr routing protocol. For example, waxaan isticmaalayaa OSPF. Okay, waxaan isticmaalayaa RIP. OSPF AD-giisa waa 110. Yeah? RIP-kana maxaa waa 120. Haddaa labadan protocol isticmaalayo yaa yar 110 iyo 120 yaa yar ii sheeg 110 iyo 120 yaa yar 110 wuxuu noqonayaa the best routing protocol isticmaalayno markii laga soo tago prefix iyo prefix length. Why 120 lacala static hadda isticmaalaya static-ga numberkiisa waa 0 markuu default yahay 0 ay cafwan waa 1 way sama 1 haduu yahay which is the best routing protocol hadii oo router-keen loo soo bandhigay yaa la qaadanaya static la qaadanaya. And this administrative ka faa'iidadu leeyahay the lower the best. Administrative maxaa lagu qeexaa marka trustworthiness network-gan aan baranayno kalsooni ma siin karnaa haddii numberkiisu oo yar yahay yes kalsooni waa siin karnaa. The more numberkaad oo bato kalsooni ma ku siinayaan. Okay, that is marka administrative distance. Routing protocols-ka marka waa kana directly connected-ka 0 okay waa default. Static route-ka 1 waa default inaan ku barana waa waxa waa bedeli karnaa aniga idinka idin deynaya marka mid kasto inay xifdisaan. Next session waxa ku qaadan doonaa haduu ilaahay idmo practice ku qaadanayna. Okay, static and dynamic configuration kooda galena laakiin maxaa idin rabaa inay xifdisantiin administrative distance-ga iyo sidoo kale waxa idin rabaa inay xifdisantiin routing table-ka qaabka oo router-ka loo soo geliyo maxay process-kan. Okay, process-kan waa inaad soo xifdisaan. wax su'aal hadaa qabtaan